maalin maalmaha kamid ayaa nin reemiya oo reer bani aslam oo raacay oo ari la jooga madiina duleedkeeda ayaa neef ari waxa ka qaatay yey baa ka qaatay ama dhurwaa baa ka qaatay dhurwaagii buu marka ka daba tagay ama baalkii yeygii ka daba tago ka ritay neefka ariga buu ka ritay markaasuu dhurwaagi hadlay ama yeydii baa hadashay alaa tattaqillah bay tiri yeydii waxay ku ilaahay maad ka cabsataniyo waxay la hadlaysaa ninkii ariga la joogay neefkiisii ka ritay taxuulu bayni wa bayna risqin saaqahu allahu ilay wuxuu yidhi dhurwaagii ama yeygii ama weerka wuxuu doonaba ha noqdee wuxuu yidhi maad ilaahay ka cabsatid maxaad iiga ridood iiga reebaysaa irsaaqad rabbi ii soo kaxiga rabbi i siiyey neefka uu qaatay wuxuu arkaa inuu yahay wuxuu rabbi ku irsaaqay ninka waa la yaabay ariga la jooga wuxuu yidhi alcajabu lidi'bin wadi'bu muqcin calaa danabihi yukallimunii bikalaami nnaas buuri yey intuu soo fadhiistay dhurwaa intuu soo fadhiista ama weer soo fadhiisto ila hadlay sidii ruux bani aadam ila hadlaayo walle waa la yaab buuri waa hawl cusub waa suurgadoon sidaasuu yidhi dhurwaagii baa hadlo wuxuu yidhi wallaahi innaka la tatruku acjaba min dalika wuxuu yidhi hawsha meenaan hadlo la yaabantaa wax ka daran oo aniga tayada ka yaab badan dhooroofinooda aan dareemayno jiruu yidhi oo jira markaasaan idhi buu yidhi wamaa acjaba min dalik inaad adugu hadasho oon bini aadan ahayn oon hadal lagugu aqoonin oo majahdin iyo cajmaawaadka ka tirsan inaad hadal sidii bini aadamku u doodood u garanto waxa ka yaab badan muxuu yahay ee lala amakaago wuxuu yidhi rasuulullaahi fi nakhalaati bayna alxaratayni yuxadisu annaasa bianbaa'i maa qad sabaq wamaa yakuunu bacda dalik inaan anugu hadlo waxaa ka daran bur oo ka yaab badan rasuulka ilaahay baa madiino jooga oo geedaha timirta dhexdooda fadhiya dadka la joogana u sheegahaya horaan wixii dhacay iyo waxa dhici doona hawshaasaa ka yaab badan buuri oo wax bini aadan sheegi kara iyo makhluuqaad uusan ahaynoo waxyi rabbi ah ninka wuu yaabay xayntii buu soo kaxeeyey madiinu ku soo yuuqay kadib buu nabiga u yimid markuu arigii meel ku soo xareeyey uu dhurwaag kaga badbaaday yuu nabiga soo aaday gurigii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabi allow maanta hawshaasaa i qabsatay ani iyo dhurwaa ama weer baa maanta kala baxnay dood baana dhex martay markan warkuu sheegay la amakaagay yo wuxuu yidhi waxaaba iga yaab badan hawshaa ka yaab adu waadan dareemaynin dabaal baa tahay hee nebi maxamed oo halkaa joogo wax walba waxya ummaddu u sheegaya yaad ka maqan tahay nabigu hawshii buu ka dhagaystay wuxuu yidhi waa run baad sheegtay laakiin maanta duurka markaan tukan salaada ka baxan istaagoo ummadda u sheeg waxaad la kulantay adiga doodin dhex martay dhurwaagi ummadda u sheeg nabigu markuu salaada ka baxay buu yidhi ayna alacraabi ninkii reemiyigaa awe faqaama alacraabiyu faqaala lahu nabi calayhi salaatu wasalaam xadith innaasa bima samicta wa bima ra'ayt markuu istaagay ninkii reemiyiga oo nabigu u yeedhay iyo wuxuu ku yidhi dadka u sheeg hor fadhiya wixii maanta aad maqashay ama aad aragtay fa akhbara annaasa bima qaala adi'bu dadkii buu u sheegay weerkii wuxuu yidhi uu ku dooday iyo neefkii uu ka ritay iyo doodii dhex martay markuu dhammeeyey qisadii ninkii reemiyiga ahaa ayuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa arraaci alaa ina min ashraadi الsaacati kalaamu sibaaci اlinsa صدق آيات تكون قبل الساعة والذي نفس محمد بيدي لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعله وعذبة صوته ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده نبي هوشب تعليقي عليه الصلاة والسلام وحوري ورنتي ننكر يميغا وركسنا واسح وعلامتها قيام الساعة إنay soo dhowda lagu gartay kamid tahay in xayawaanaadka qaarkood iyo bahalladu iyo dugaaggu ay hadlaan sidii bini aadamka ilaahay baan ku dhaartay qiyaamadu dhici mayso suurka la rogi maayo ilaa dugaaggu idan la hadlo oo cidooda idan la hadasho oo cidoodii xayawaan iska badaaye jirkiina iyo ula hadwaataan idan la hadlaan ويكلم الرجل نعله كبتدا كل هل كبتدا كدور إلهي كعبس وحناد وضوح صعن ما وعلامتها لو قرت قيام الساعة وحالها اللي وعذبة صوته وش هذا كذا الكذوات في ددي فرق يدا كل هل ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعدي بوجد لا كل شيء غير كل حكاية قدام بي
hal imka taraawix soo aaday islaantii carruurtu waxay sameeyeen halkan laga darooriyamaaya lugahaadii baa hadli booyada hadli gacmahaadii baa hadli waxyaaba lagu garan doono in saacadu ay soo dhowdahay xadiidka shaahidka uu leeyahay min xadiid abi hurayra asaguna waa xadiid sugan marka waxay kamid tahay min aayaati al-anbiya ومعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وحكمرات كعيا نبي نبت كيسي الرسول نبت كيسي حيوان كي يواركي درواقي اللباحي كدمنا التعليق بالنبي ونو صاري آذو قيمة بدون هذا وحبضان كو قرنيسا